السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haddii aad isku aragto qufac soo laalaabtay, neef qaadashada oo ku dhibayda, xiiq badan, iyo kalarka iyo midabka xaakada aad dhigeedu isbedelay, waxay calaamado u tahay in sanbabkaada khatar badan uu wajahayo. Waxaan halkan maanta kugula wadaagayaa 10 calaamadood oo la yiraahdo red flag signs oo dad isku aragto ay muhiim tahay in dhakhtar booqato, sidoo kalena aad taxaddar badan ka samaydo caafimaadka sanbabkaada. Qodobka ugu horeeya, intaan arrintaas guda gelin, hawo qaadashada, isbedelka neefta, ka faa'iidaysiga oksijiinka iyo soo saarista carbon dioxide oo ah toxic ama sun, waxa qayb weyn ka ciyaara sanbabka. Waxaana xubinta ugu muhiimsan ee hawo mareenka ay tahay xubinta loo yaqaano sanbabka, oo qof kasta oo naga mid ah oo garanayo. Waxaana khatar geli kara waxyaabo badan sida allergiga, waxyaabaha hasaadiska ah oo kiimikaaliska ay ku jiraan oo qofku uu isticmaalo, iyo dhammaan infekshanada noocyadooda kala duwan. Calaamada ugu horreydo haddaad isku aragto la rabo inaad dhakhtar booqato ama ay muujinaydo in khatar dhanka caafimaadka sanbabka ay jirto waa qufac soo laalaabta. Qufaca soo laalaabta wuxuu muujinayaa in sanbabku uu khatar ku jiro. Arrimaha noocaanna waxay yimaadaan markii allergic qofka uu saameeyo ama uu xaalad qaboob ah uusan arki jirin la kulmo, haddii hergeb uu ku dhaco kale, haddii xanuuno chronic ay jiraan, xanuuno soo daashada qofka ay jiraan, xanuunada loo yaqaano COPD ama chronic obstructive pulmonary disease haddii ay jiraan, neef haddii ay jirto, iyo kansarada qaar ee ku dhaca sanbabka. Sidoo kale waxyaabaha infectionska ugu muhiimsan ee qufac soo laalaabta inta badan keeni kara ama iska jooga waxaa ka mid ah TB-da. Qodobka labaad waa shortness of breath ama waxa la yiraahdo in ay ku dhibto qaadashada neefta. Haddii aad aragto inaad neefta raadinaydo oo aad xoojinaydo qaybaha kore ee jirkaada ama xabadkaada, murqaas aad isticmaalaydo, waxay ka dhigan tahay in xaalad khatar ay ka jirto gudaha. Oo raadinta neeftaasi waxay ka macno tahay in awoodda sanbabku uu hooseeyo. Xaaladaha noocaana waxaa keena inta badan neefta keenta, emphysema xanuun la yiraahdo keena, pulmonary hypertension ama dhiikar ka dhaca xididdada gudaha ee sanbabka ayaa sidoo kale keena. Haddaba haddaad isku aragto neefta oo ku yara dhibayda, waxaa muhiim ah in dhakhtar booqato, ogaatana in xaaladdaasi aysan xaalad lala sii baaqi ahaa karo. Wheezing ama waxa la yiraahdo qofka oo xiiq badan dareema. Dareemista xiiq badan ama cod badan inaad maqasho oo ka imaanaya dhanka sanbabka waxaa badanaa la xiriirta neefta iyo waxyaabaha allergiga iyo sidoo kale infection ku yimaada tubooyinka sanbabka ee loo yaqaano bronchitis. Haddaba waxaa laga doonayaa in xaaladdaas ku aragto aad dhakhtar booqato. Sidoo kale qodobka afraad waa chest pain waxa la yiraahdo ama xanuun inaad ka dareento xabadka. Xanuunada ayaa kala ah, laakiin xanuun haddaad ka dareento xabadka macnaheedu kaliya maaha in sanbabka bis laga hayo, laakiin meelo kale oo ka imaan kara. Badanaa xanuunada laga dareemo sanbabka waxaa ka mid ah xanuun sida in midi lagu mudayo kale, stabbing sensation waxa la yiraahdo, sabab la xiriirta xanuunkaas oo haddana aad u xanuun badan. Sidoo kale waxaa laga yaabaa xanuunkaasi inuu ka turjumayo waxa la yiraahdo bilirubin ama in infection uu ku yimaado qaybta daboolka sanbabka ee loo yaqaano biluraha. Sidoo kale laangi kansar haddii uu jiro uu keeni karaan in xanuun badan uu yimaado. Unexplained weight loss ama miisaankaada oo hoos u dhacaya adigoon ogeyn exactly sababta ka dambeyda, waxay arrintaani miisaan hoos u dhicista keeni kartaa in ay ku siido fikir ah ama fahan ah in sanbabka xaggiisa khatar ay jiri karto. Waa haddii calaamado kale ay la xiriiraan. Waxaana badanaa la sheegaa in miisaanka hoos u dhaca ay la xiriiri karto infekshanada qaar sida TB-da ugu caansan, kansarada ku dhaca sanbabka ku dhaca inay aad ula xiriiri karto. Waa haddii calaamado kale ay la xiriiraan qufaci, mararka qaar xab badan ay yeelato kale, iyo neefta oo ku dhibaydo. Qodobka lixaad waa daal badan inaad isku aragto. Haddii aad isku aragto daal badan oo aan ka raysanaynin, waliba soo laalaabanaya ama joogto ah, taas waxay macnaheedu ka dhigan tahay in sanbabkaada uusan aad u awoodin in oksijiinka jirkaada uu gaarsiiyo. Maadaama jirka haddii oksijiinka la gaarsiiyo, xididdada iyo dhammaan jirkeena, murqaha waxa dhan ay firfircooni ka dhalanaydo. Dadka qaar waxay isku arkaan hurdada iyagoo jiifa in neeftu ay ku dhegto, sleep apnea la yiraahdaa, ama waxaa keeni karta la yiraahdaa daalka tirada badan in xanuuno ku soo laalaabtay sanbabka ay keenaan. Marka haddaad isku aragto daal badan
waxaa laga doonayaa in dhakhtar la xiriirto sidoo kalena aad xaqiiqsato in sanbabka xaggiisa wax ka jiri karaan oo ila xiriiri haddii aad daal badan isku aragto oo la xiriirto neefta mararka qaar kugu dhegay qufac waxaasaa laga hadlayaa ee daal badan keligiis maaha frequent infections ama infectiona soo laabta haddii isku aragto in infectiona badan aad la tacaalaydo oo markastoo ay kugu soo laabtaan aad develop garaynaydo xanuuno la xiriira dhanka hawmareenka sida bronchitis iyo pneumonia waxa la yiraahdo oo ah infectiona ku dhaca tubooyinkaas sanbabka inta badan haddii mar kasta aad la tacaalaydo oo ay kugu soo laabanayaan waxay macnidu ka dhigan tahay in difaaceedu uu hooseeyo sidoo kalena sababta infectionadan soo dedejinayda ay keeni karto in xanuuno mataqaanaa u gaara sanbabka ay jiri karaan waxa ugu muhiimsan waa in difaaca jirka hoos u dhaco qodobka sideedaad waa isbedelka ku yimaada xaakada kalarka waxa ay ka kooban tahay iyo tirada ama tayada xaakadu isbedesha waxay muhiim u tahay ama calaamad u tahay mararka qaar in wax ka jiraan sanbabka xaggiisa haddii aad aragto xaako adag kalarkeedu isbedelay ama dhiig oo ku jiro waa inaad dhakhtar booqataa sababtoo ah calaamadahani isbedelka noocaani wuxuu badan la xiriiri karaa infectionada sababka ku dhaca sidoo kale haddii uu jiro wax la yiraahdo bronchitis chronic bronchitis ayuu mataqaanaa la xiriiri karaa ama xanuuno kale oo sanbabka ku dhici kara clapping fingers waxa la jira oo qodobka sagaalaada clapping fingers waxa waaye waa in gacmaha xijiyahoodu ay waaweynaadaan sidoo kalena ay qalloocdaan badanaa waxay la xiriirtaa xaaladda noocaana xaaladaha caafimaad ee dishooday ee muddo badan soo jiray qofkana haya sanbabkiisa sida kansarka la xiriiri kartaa wax la cystic fibrosis iyo bronchiectasis soo haddaad isku aragto in faraha xijiyuhu meeshay ka sinaayeen oo yacni ay yara qalloocnaayeen inay inta qallooc ka bixeen bilaarteen sidoo kalena mataqaanaa sawirkan meesha inay soo saari doonaan qaabka ay tahay haddaad isku aragto qaabkaas waa in dhakhtar booqataa qodobka tobanaad exposure to environmental risks inaad qofku uu la kulmo ama mar kasta uu daris leeyahay waxyaabaha riskiga ee environmentiga la xiriira sida air pollution hawadu way wada wasaqaysantahay mararka qaar because wadamada warshadaha badan leh iyo isticmaalka gaaska tirada badan wuxuu keenayaa in hawo badan lagu daayo wasaqa hawada lagu daayo wasaq badan laakiin mararka qaar waxaa dhacda qofku inuu isticmaalo waxyaabo khatar gelinaya sida waxyaabaha asbestos la yiraahdo radon gaaska waxyaabaha insectska lagu dilo waxaasoo dhan waxay keeni karaan in ay badiyaan khatarta haddii qofku marar badan la kulmo xaaladda noocaas inay ka qayb qaataan in kansarka sanbabka ay keenaan sidoo kale tahaarka sanbabka kansarada ku dhaca sida mesothelioma kansar inuu badan u keeno marka haddaad badanaa isku aragto haddii aad markaad waxyaabaha insectiska ama waxyaabaha kalo chemicalska ama qaaca ama waxyaabaha la xiriira gaaskaas hawada ku jira waxaan gaaska qaar hadaad yaa ku qabatimaydo ama aad ku jiranaydo ama qufac badan kadib aad yeelanaydo macnaheedu waxay ka dhigan tahay inaad xaaladaha noocaas ah ee environmentiga la xiriira aad khatar kugu yihiin inay muhiim tahay in dhakhtar booqato kadib tobankaas qodob ayaan kusoo koobaynaa waxyaabaha keeni kara calaamadaha keeni kara inaad shaki badan aad ka gelido caafimaadka sanbabkaada waa muhiim inaad garato calaamadaha aan kuu soo sheegay maadaama laga yaabo inay kaa saameeyaan ama ay xiriir la leeyihiin xanuun khatara ee ka jiri kara ama xanuuno u baahan in la tacaalo dhakhaatiir inaad booqato u baahan ee sanbabka ka jiri kara waxaana fariintani kugu soo gudbinayaa inaad markasta awarenesskeena ama yacni ogaanshaha calaamadahaas ay ka caawido inaad يعني dhakhtar aad booqataan oo si dhakhtar u booqataan